dhegeystayaasheena qiimaha iyo qaayalow halka aad naga dhegaysanaysaan waa radio 1 Soomaaliya oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha dhererkeedu uu kala yahay AM 1540 iyo mawjada kale oo dhererkeedu uu yahay 91.9 FM iyo habka Chin Radio. waxaa barnaamijyadan idiin soo gudbinaya anigoo ah Muuse Kuulow, Xuseen Nuur Xaaji iyo Yaasiin Adeegkar. waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada Radio 1 Soomaaliya oo sabti walba aad halkan nagala socotaan. waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 3 bisha 2 ama February sanadka 2018. hadduu rabbi ka raali noqdo si wada jir ayaa halkan barnaamijka ugu soo wada jeedin doonaa. dhegeystayaashu fikradoodu waxay ka soo dhiiban karaan dabcan telephone numberka iyagoo naga soo beegsanaya 41687 eber 154 eber. sidoo kale dhegeystayaashu waxa ay markaasi fikradoodu ka dhiiban karaan qodobada aan markaasi ku qoran dhinaca Facebook live-ka ee ku aadan arrintan diyaarado la sheegay markaasi in ay ku soo dhaceen qaybo ka mid ah Wanlaweyn oo marka aan la ogeyn dabcan ciddii ka dambeysay ama waxa ay siday. sidoo kale dhegeystayaashu waxay fikradoodu ka dhiiban karaan qodobka kale ee ku aadan Cabdi Qaybdiid oo dabcan ka mid ah amaba ah senator dowladda Soomaaliya. labada qodob dabcan Facebook ay ku qoran yihiin. tan koowaad waxay tahay diyaarad ayaa la sheegay inay ku dhacday meel u dhow Wanlaweyn. dad badan ayaa rumaysan in diyaaradahaasi ay guranayaan kheyraadka dalka. haddaba sidee loo joojin karaa dhibaatooyinka ay geysanayaan diyaaradaha shisheeye? dowladuse maxaa la gudboon? dhanka kale senator Cabdi Qaybdiid ayaa sheegay in 3 maalin kadib dowladdu aysan waxba ka qaban weerarkii loo geystay gurigiisa. haddaba maxaa la gudboon dowladda? sidee looga hortegi karaa in dhibaato horle ay dhacdo? fadlan dhegeystayaal fikradiina ka dhigta labadaas qodob. sidaas la mid ah haddii aad doonaysaan inaad si toosa Facebook live-ka barnaamijka aad ugu qayb qaadataan waad soo codsan kartaan, waana idinka qaybgelin doonaa. markan aan ku wareejiyo Muuse intaanan barnaamijkeenna aanan furan. ما شاء الله dhegeystayaasheena qiimaha qaayalo halkaad naga dhegeysanaysaan waa Radio 1 Soomaaliya. waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan, habeen wanaagsan, maqrib wanaagsan. caalamka meel kastoo aad ka joogtaan, Africa, Australia ama North America iyo Europe, waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan. annagoo ay inoo tahay maqribnimo bisha February 3 2018 waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan. waa anigoo ah Muuse Kuulow, Xuseen Nuur Xaaji, Yaasiin Adeegkar, ayaan Yuusuf Cumar iyo Dr. Qaasim Xirsi Faarax oo nagu soo biiray haddeertaan. bal aan soo dhaweeyo marka hore ayaan Yuusuf Cumar oo dhinacayga fadhida. ayaan galab wanaagsan, habeen wanaagsan. waa mahadsantahay Muuse. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waa mahadsantihiin umad Soomaaliyeed meel alla meesha ku nooshin. ما شاء الله. waxaan idin leenahay mar labaad galab wanaagsan. bal aan ku celiyo saaxiibkay Xuseen Nuur Xaaji. bal waa kaasa Xuseen. waa tahay waad mahadsan tahay Muuse. dabcan waxaan nagu soo biiray sidoo kale Dr. Qaasim, laakiin waan isku soo laaban doonaa inagoo ka hadli doona qodobo badan oo ku aadan halkan dalkan aan ku noolnahay Canada iyo guud ahaan Soomaaliya waxyaabaha ka cusub. dhegeystayaashu mar kale waxay dabcan fikradooda ka dhiban karaan Facebook live-ka. waxaa nagala socotaan dabcan Radio 1 Soomaaliya. telephone numberka 41687 eber 154 eber ayaad naga soo beegsan kartaan.
tahay heestaasi social mediahu sidaa ma aha waxaa dabcan qaadaysay deeqa afro laxanka iyo midhahana dabcan iyada ayaa iskale waan sii cayaari doonaa amaba mar kale ayaan daari doonaa hadduu rabbi karaal noqdo intaan ku guda jirno barnaamijkeenna marka la radio one soomaaliya ayaad nagala socotaan dr qaasim muuse kuulow ayaan yuusuf iyo weliba yaasiin abikir iyo anigoo xuseen nuur xaaje ayaa barnaamijka sii wada jira halkan idinku daadihin doona markan aan ku wareejiyo muuse dabcan social media lafteedaba haddii aan ka bilowno qodobo badanaa dabcan jira laakiin tan waxay ka mid tahay waxyaabaha dadku saameynta badan ku yeeshay weli way dhiman tahay heys waxyaaba badan ay ka hadlaysaa laakiin ilaa hadda inta yar ay ka hadashay social mediahu sidaan ma aha in commentiga lagu caayo haweenku ma ahan wax badan ka waran bal sida u isticmaala annaga sida ugu faa'iideysano teknolojiyadan cusub iyo gaar ahaan warbaahinta bulshada social media sidiisaba waxa waaye runtii kulligan saxaafad ayaan wada nahay saxaafaddana waxa waaye waxay leedahay wax la yidhahda ethics oo mediaha the social mediaha wuxuu ka mid yahay principleska ama wuxuu ka mid yahay mediaha qayb ka mid ama paper ha noqdo ama social media ha noqdo ama radio ha noqdo ama television ha noqdo wuxuu doono ha noqdo laakiinse waxaa jira sideedaba wax la yidhahda principle ama waxa waaye ethics of media wax la yidhahda ma fahmaysa oo in la ilaaliyo ay ku habboon tahay marka runtii waxyaaba badanoo waxa waaye saxaafadda soomaalida ama hadday noqdaan radio ama hadday noqdaan social media ama hadday noqdaan television intaba waxyaaba badan aysan ilaalin ayaa jiro runtiina ma ahan in saxaafadda wax lagu ammaano saxaafaddana in wax lagu caayo ma ahan sideedaba laakiinse waxyaabaha dartaan soomaalida badana isaga qaldan waxay tahay qofkii dowladdii waxaa arkaysaa qof ku ammaanaya arkaysaa social mediaha ama saxaafadda ku ammaanaya qof waxaa arkaysaa waxyaaba aysan ahayn runtii ku tilmaamaya laakiinse waxaa jira dad iyagana ku caytabaya ama aflagaad ugu geysanaya mataqaanaa nidaamka ama dastuurka ama dowladda markaas meesha jirta oo waxay ka dhacdaa maraykanka haddeertaan waxaan la soconnaa donald trump inuu waxa waaye twitterka waa qayb ka mid a social media inuu u isticmaalo powerful waxyaaba runtii waxa uu codkiisa uu ku gudbiyo aysan saxaafaddii kale aysan gudbi karin ayuu u gudbiyaa laakiinse dad badan oo dhinaciisa asagana opposite ku aho wixii beeniya ayaa jira marka runtii waxay ku xiran tahay in sideedaba mediaha ama school of ethicska waxyaabaha runtii nalagu baray ama adigaba waa soo baratay runtii kaagama sheekeyna intayna waa wada naqaana inaan ilaalino principleska waa 5 principles ayaa la ilaaliyaa ma fahmaysaa in waxa waaye shantaas sitood hadda ma falanqeyn karna waqti uma hayna laakiinse waxaan ka hadlaynaa in la ilaaliyo oo runtii ay tahay in lagu xadgudbay markaas sitood waxa waaye social media ama media ama whatever media oo markaas sitood saxaafaddii laga hadlaya marka doctor qaasina waa nala joogaa runtii bal aan u gudbina asagana بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aad baan ugu amaanayaa sida muuse kulo uu u sharaxay arrintaas iyo sida heestaas uu u soo xulay xuseen xaaji saan rajaynaya waa hees innaba aan caadi ahayn marka runta ayay ka dhawaajisay oo sheegtay waxaana kalifaya inay sidaa sheegto annagu ahaan radio one laftigan waa inaan u qaadanaa waxaa dhiirigelin iyo qofka haddaan mar walba la daba taagnayn oo yacla lahayn laftigiis biniaadan baana waxaa laga yaabaa inaan simbirarxano marka inay gaadh noo ahaato waan ku rajaynayaa sidoo kale midiyaalka kaleeto waxaa kalifaya soomaalidu inay midiyahooda laga cabaado waxaa ugu weyn oo kalifaya waxay tahay in markii hore soomaaliya waxay lahaan jirtay dhaqan la yidhaahdo dad la yidhaahdo afmaal baa jiray oo qofka yidhaahda ama waxaas isii ama kuu gabyaya marka halkaasay taagnayd laaluush bay ku socotay kabacdina 30 sano dowlad la-aan ayaan ku jirnay rafaad waxay sababtay qof walba in uu ka dhigto qof meherad ka dhigto badanaa dadka hadda media soo bartay soomaaliya waxa ku shaqeeya aad bay u yar yihiin inta media ku shaqeysa waxay u badan yihiin dad ama course hal usbuuc qaatay ama aan weligoodba ka shaqaynin marka u fahmaya meel ay ku shaqaystaan waa arrintaas waxaan rajaynayaa inay marka soo abjaranto xilligan la joogo oo ay mediaha sharcigeeda rasmiga ah ay ku socoto marka laga bilaabo soomaaliya ay xaqiiqadeedii marka lugta soo saarto soomaaliyana furaheedu waxay noqonayaan mediaha iyo wadaadada labadaas hadday hagaagaan dadka waxaan rajaynayaa inay hagaagaan waa mahadsan tahay xuseenow ani arrin yar le rabaa inaan ka dhawaajiyo oo ah nin waxaa jiro la yidhaahdo albert einstein wuxuu yidhi adduunka hortidiisa waa meel khatar aan ku noolnahay ma ahin dadka waxa qurunka ku sameynaya ama dadka dilaya ama wax qarxinaya ama dadka dhibaatada u geysanayo laakiin dadka adduunka ugu khatarsan oo laga boqo waa dadka annagoo kale ah wax fiirsanayno waxnana aan ka qabanayno marka dadka ka baqaya marka waxa waye xooggeena akhlaaqdeena waxbarashadeena inaan ku dhimino ma ahin inaan maalin kasta qof cayno ama maalin kasta u taagnaan inaan qabiil ku taagarayno
waxa xooggeena iyo aqligeena iyo la rabo iyo inaan ka faa'iidaysano waxay tahay inaan waddankeena hore u marino inaan waddankeena maxaan ku tabaruci karnaa waddankeena maxaan u qaban karnaa waddankeena xaggee ka soo geli karnaa waddankeena waxyaabo badan oo waxaa jiro waddankeena u baahan yahay aanan u jeedin maraan government wax ka sheegno iyo maraan wax ka sheegno laba qofood oo qabiil ah iyo maraan qabiil isku caayno iyo waa wax laga fiican yahay social media waa inaan uga faa'iidaysanaa inaan waddankeena ku dhisno xuseen waa tahay ayaan wad mahadsan tahay dabcan social mediahu waxyaabo badan oo faa'iido u leeyahay sida muuse ka dhawaajiyey waxyaabo badan oo markaa faa'iidooyin khasaare kala duwan khasaare iyo faa'iido mar dabcan wuu leeyahay marka waan ka hadli doonaa qodobada kale dabcan ku aadan barnaamijkeena dhanka kale dabcan ayaan waxaa jirta arrimo badan oo halkan lafteeda aad bulshadu mar walba u sheegi jirtay oo ku aadan soomaalida iyo qaabka isku caawin lahayd barnaamijyada ay rabaan inay wadaagaan bal ka hor warka intaanan gelin qodobkaas haddii aad wax ka dhawaajinaysa waa mahadsanta xuseenow waxyaabo badanaa jiro hadda shir baa soo socda oo 17 february dhacaayo oo lagu qabanayo maxaa la dhahaye Jane Hubs 1540 Jane Hubs in laga soo qayb gala ay tahay waxaa imaanayso governmentiyaasha imaanayaan in level in laga wada hadlo marka Soomaaliya waxaan rabaa kale in sheego waddankan sharcigiisu waa badan yahay sharcigiisa daada aqoon qofkii sharcigiisa yaqaan oo hogaaminayo inaad waxba maaragtay raacdo oo la tashato oo maxaan ku sheegay wax isku qabato caruurteen maalin kasta waa la dilooyaa sheekadan hore idin sheegay sheeko joogsanaysa maaha sheekada reasonka u joogsan la-adana waa taqaaneen waxa waaye cunuga dhibaatada loo geysanayo iyo kan wax geysanayaba annagaa dhalna runta haddii loo qabto laakiin labadoodaba waa caawini karnaa weygan ku caawinaynan waxa waa annaga inaan huddo ka kacno waxaa taas ka sii daran waxyaabaha yaryar oo naloo geysanayo hadda maalin dhaweyta waxaan ka arkay journaalka wiil masaakiin oo hadda kale dambi yar galay kadibna iska noqday dadkan iska jiran oo mental healthiga ah immigrationka xireen soo meesha ugu xirnaa adiga 3 sano waaba dileenba meesha ku dhex dhintay marka waxa waaye waxyaabo Soomaalida waxa maalin kasta ku dhacayo waa waxyaabaha ugu sahlan oo waddankan laga bixi karo haddana waxa waaye lisma ogo waddanka sharciga lama socdo ma nihin dad isku duuban oo maaragtay la dhihi karo maaragtay communities dadkaas 20kaas qof ay jirto advocacy-ga Soomaali advocacy government-igana ka baqaan oo loo yarano wataan oo la fariisto marka waxa waaye haddaanan isku duubneen annagana waa baaba'eena caruurteenana waa duugeena Canada kaliina kuma duugeene London dhibaatadaas ka jirto iyagana ilmo yaryaraa la midiyeenoo maalin kasto marka meel kasto Libya hadda dad badan ku xiran oo ku dhibaataysan dhalinyaro badan oo calool xumo ah marka waxaan la yaabay annagoo adduunka saas ugu dhibaataysan haddana aan aamusanahay oo qofna hadlaynin oo annaga isku maqanay inta adduunka joogto dheregta ka badatay oo baabuurta iska haysato naxariista ku jirto nabadgelyada haysatana waxa waaye social media waxay ka dhigteen inay isku qabsadaan oo dhibaato isu geystaan war dadkeen yaa la baabo war dadkeen yaa dhimaana war dadkeen cunugeero 3 sano jiro oo kansar ku dhacay muxuu ilaahay ka galabtay wuxuu ilaahay ka galabtay camal tus annagana camal tusay hurdada halaga kaco ما شاء الله وحلقة يا سكرمها رنتي وحدين صورة تجري إن دقيستان راديو وان الصومالية حج عن عمرة تور جايد أو رنتي إذن الله وحان إذن هنا باكج آد وجبن أو رنتي dadka doonaya inay soo cimriyaan ama ay aadaan xajka bisha Agoosto 12keeda 2018 ayay bilaabanaysaa ayay ku leeyihiin dhaqaaqa ama runtii socdaalka ugu horeeya ee xajka March break waxay yiraahdeen waa sold out already waa uu buuxsamay laakiin dadka waxaan runtii nasiib ama jaanis u siinayna package aad u jaban dadka doonaya inay xajka aadaan waa xaj an umra tour guide oo ku yaala agaarka Western Lawrence waxa kale oo idin suurtageliyay inaad dhageysataan Canadian Eastern Canada High School oo runtii ku yaala 165 Rexdale area waxa uu idin leeyahay haddii caruurtiina ay iskuulaadka ku dhibaataysan yihiin ama ay u baahan yihiin extra credit ama ay extra help math ama science ama any other subjects waxaan idin leenahay ka soo qaybgal ayay idin leeyihiin waa Eastern Canada High School bal aan ku wareejiyay Xakiin Xuseen waa tahay muuse waad mahadsan tahay hadduu rabbi ka noqdo waxaan geli doonaa warka laakiin intaan warka gelin ka hor dabcan waxaa jira arrimo badan oo ku aadan Soomaaliya bal qodobo haddii aad rabto muusina ka dhawaajiso absolutely waxaan maqlaynay diyaarad ayaa ku soo dhacday gobolka Shabeellada Hoose ama runtii koonfur galbeed Soomaaliya qaybaheeda koonfur galbeed waa areada bariire ama runtii ay yiraahdaan marka waxaan maqalnaa mar walba diyaarad ayaa ku soo dhacday diyaaradaas intuu markii ku soo dhacday diyaaradaas intuu raqdeeda iyo ruqdeeda iyo meel ku dhibcday ma aragno diyaaradii meeshii haddii xataa diyaarad dhacday waxaan aragnaa in bal ma taqaanaa ay meeshii wax ka soo haraan diyaaradii burburkeeda meeshii lagu arko
diyaaradii ayaa meesha ku dhacdaa la yidhahdaa kadib waxaan aragnaa shabaab oo mataqaanaa hub cusub iyo qalab cusub iyo gaardis iyo waxa bilaabaan mataqaana marka waxyaaba noocaasa ayaa dalkii kusoo farbatay waxaan haddana la yaabanahay buurtii aad taqiinin oo waxaa ahayd buur hakaba meeshii la lahaa bar ayaa maqan waxaa lala yaaban yahay xaggee aadeen habeenkii waxaa dadka markii kuu sheekeynayaan ilaa iyo dhankaas horta buur ilaa iyo xamar isku soo xiran oo waxaa arkaysaa xalana oo baabuur waaweyn oo qafulin oo waxyaabaha ay wadaan jamalle inay buuro inay saasiyiin aad dareemaysid ayay sidaanoo teendhooyin ay ku raran yihiin marka waxyaabahaasoo dhan ayaan la isweydiinin marka soomaalidan iyaga ayaa laisku mashquulay oo waxaa la leeyahay siyaasaddii waa saasa farmaajo sidaas yiri xagguu maray waxa waaye mataqaanaa waxa waaye yaxy iyo mujid iyo waxbaa mataqaanaa faraanti baa ugu jira iyo waxyaaba noocaasa marka badan ku wareejiya saaxiibkay bismillahi raxmaan raxiim waxa weeyaan arrintan horta ah diyaaradda soo dhacday waa mar koowaade annaga ku eegaynaa qalbisan waxaan ka dhigi karnaa inay diyaarad dar alla usoo dhacday tahay laakiin cilladdu maxay tahay maxay meelo kale uga soo dhici weyda oo soomaaliya uga soo dhacdaa soomaaliya waxay uga soo dhacdayna aan niyad samaan u eegno waxa weeyaan diyaarad waxay u baahan tahay intaasoo dhowr makaanig oo kala duwan oo markay kacayso injiinadeeda oo dhan baara waxay u baahan tahay electric civic aviation waxa la dhaho civil aviation oo ah engineering bay u baahan tahay electrification bay u baahan tahay waxay u baahan tahay qaabka dooritaanka dhowr engineer baa eegta diyaaraddu marka ay kacayso in dhowrka engineerba ay wadanka joogaan oo ay xaadir ku yihiin oo diyaaradda ka kacaysa ay eegaan baa muhim taas waa technicality kale diyaaradaha meel ay ka yimaadeen lama yaqaano diyaarad ayaa ku dhacday halkaas la yidhahdaa laakiinse waa isku soo noqon doonaa qaybahan iyo qaybo kale oo aad u fara badan bal warkii hal noo soo gudbiyo xuseen nuur xaaji waa tahay muuse waad mahadsan tahay dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada radio one soomaaliya qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah senator cabdi qaybdiid oo dowladda ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban weerarkii lagu qaaday gurigiisa diyaarad u muuqata nuuca xamuulka oo lagu soo warramay inay ku dhacday meel u dhowan la weyn doorashooyinka gobolkan ontario oo isbedello ka duwan tii hore markaa la shaaciyey sidoo kale kenya waxa ay yeelatay laba madaxweyne qodobadan iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan haddaba bakar raali noqdo marka horese aan ku bilaabo senator cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu aysan waxba ka qaban dadkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday gurigiisa wuxuu tilmaamay inay ka soo wareegtay 330 maalin weerarkaasi ilaa iyo haddana aanay jirin tallaabo ay qaaday dowladda amaba cid loo soo xiray qaybdiid ayaa horey weerarka ugu eedeeyey sirdoonka dowladda imaaraadka oo uu sheegay inay adeegsanayeen ciidamo soomaaliya weerarkayga waa muuqataa 33 cisho kadib mar haddii aysan jirin cid dembi baa dhacay dembigiina cid lagu soo eedeeyey ilaa hadda ma jirto way muuqataa qoraalkaygay ku jirtay oo ahayd ciidamada aan sheegay oo ay leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliyeed oo xoogga dalka ka mid ah iyo kuwa gobolka banaadir ee nisa ayaa waxaa isticmaalayay saraakiisha imaaraadka halkan u joogta oo ciidanka tababarka u qaabilsan ee dugsiga goordan ku haya waxay tahay shalay marka ugu horeysa hubkii magaalada lagu watay barnaamijkii xasilintaa lagu dhigay oo hala dhigaa la yiri qori technica iyo hub culus laba qaadan karo marka ujeedadii shalay ciddii doonaysa shalay inay qaadiso maanta weli wax ka maanacaya inay mar kale muxuu ahayday inay fuliyaan wax ka maanacaya ma jiraan marka warka saas weeye waa tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka ama waa aan idhaahday guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamanka soomaaliya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka warramayey in weerarkii gurigiisa lagu qaaday ilaa iminka aanay dowladdu waxba ka qaban diyaarad u muuqata nuuca xamuulka ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhacday deegaan u dhow degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee maamulka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in diyaaraddaasi oo aan la ogeyn nooceeda iyo dalka laga leeyahay ay ku dhacday deegaan u dhexeeya saldhigyo ay ku kala sugan yihiin ciidanka dowladda iyo al-shabaab hornaanta bishii hore ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in diyaarad halkaasi ama meel u dhow ay ku dhacday dadku waxay isweydiinayaan diyaaraddu cidda iskale iyo waxa ay siday haddaba waa kan guddoomiyaha oo arrinkaasi ka hadlaya deegaankaasi waa deegaan ka mid ah degmada wanlaweyn waaye oo la yidhaahdo lebiga dheer deegaanku waa deegaan maaragtay kalabar camal ku aadan oo maaragtay dhanka dowladda iyo al-shabaab meel udhexaysa ah
wararka hordhaca unu soo gaarayo waxaa maaragtay lagu warageliyey marka koowaad in maaragtay ciidamadii maraykanka oo ku sugnaa beledoogle iyo amisom baa lagu warageliyey saldhigga booliska iyo kulli warbixinayna soo siiyeen meesha iyo maamulkii degmada wallaweyn kadibna maaragtay wararka ugu dambeeyey waxay noo sheegeen in maraykanku ay tahay diyaaraddu meeshay ku dhacday waynu aragnay kor baynu kala soconnaa taasi way xaqiijiyeen laakiin diyaaradda cidda lahayd iyo waxa ay siday doonaba aysan xaqiijin dad maaragtay reer baadiye ah iyo dad beeraley ahna waxay noo soo sheegeen diyaaraddaasi oo sii dhacaysa inay amba sii degaysa inay arkeen waa tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiye cabdifataax xaaji cabdulle oo ah guddoomiyaha shabeellaha hoose ee gobolka shabeellaha hoose ciraaqi oo ka hadlayey diyaarad la sheegay in halkaasi ay ku soo dhacday markana horraanta bisha juun ee sanadkan waxaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada guud ee 24aad ee gobolka Ontario iyadoo ay markan ku tartamayaan siyaasiyiin kala duwan oo ay ka mid tahay Catherine Wayne oo hadda ah premierka gobolka doorashadan 2018 ayaa la sheegay inay wax badan uga duwan tahay doorashooyinkii hore gaar ahaan tii dhacday 2014 waxaana ka mid ah isbedelada in xisbiyada siyaasadda laga mamnuucay lacagihii dhaqaale ee ay ka heli jireen iskaashatooyinka iyo ururada balse waxay taageero dhaqaale ka heli karaan shakhsiyaadka sidoo kale waxaa ka mid ah isbedelada in xilli hore la ogyahay xilliga doorashada oo ah 7 bisha juun ee sanadkan oo maalin khamiisa dabcan ku beegan taasoo ka duwan tii 2014 oo siyaasiyiintu aanay helin waqti ku filan si ay u ogaadaan xilliga rasmiga ee markaa doorashadu ay dhacayso dhinaca kale Soomaali uu ka mid yahay Faisal Xasan oo hore u tartamay heer federaal ee xaafadda South York Weston ayaa u tartamaya isla xaafadan isagoo markaan u istaagay dhinaca gobolkan Ontario haddaba dadku waxa ay ka dalbanayaan xisbiyadu inay isu soo baxaan oo ay taageero u muujiyaan isla markaana ay ka qayb qaataan markana dalka Kenya waxa ay dadku walaac ka muujinayaan xaaladda cusub ee dalkaasi galay kadib markii hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Raila Odinga uu sheegtay inuu yahay madaxweynaha shacabka ee dalkaasi 30 bishii hore Odinga ayaa ka soo hormuuqday kumanaan qof oo taageerayaashiisa goortaasoo loo dhaariyay inuu yahay madaxweynaha shacabka ganacsatada Soomaalida iyo dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya inkastoo xaaladda guud ay imika degan tahay haddana in xaaladdan cusub ay ka muujinayaan walaac ku aadan rabshado sababi kara dhibaatooyin loo geysto ganacsigooda Raila Odinga oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dalkaas ayaa sheegay in shacabka ay ridi doonaan waxa uu ku tilmaamay xukunka kale talisnimada ah ee hogaaminayo Uhuru Kenyatta guud ahaan warka Radio 1 Soomaaliya ee xilligan aad nagala socoteen waa naga inta aniga Xuseen Nuur Xaaji ayaa soo jeedinayay Yaasiin Abikar ayaa dabcan warkaas soo saaray intaan mar kale kulmi doono aan dib idinku celiyo heestii social media waryaha socdaalka ah ee shacabkiisu sugayaan
barakaatu mar kale iyo radio one Soomaaliya ayaan barnaamijkan noo sheegtay inuu dhici doono maalinta sabtida ah waxaad noo falanqaysaa waxa uu ku saabsan yahay waa mahadsantahay yaasiino barnaamijka aniga si fiican waxba uguma ogi gabar baa isoo wacday oo ii sheegtay oo tiri waa inaad timaadaan laakiin waxay tiri waxaan u baahanahay dad badan oo expertise dad badan oo ka hadlo caruurteena dhibaatadooda dad badan oo ka hadlo sidii maanta isugu imaan lahayn governmentigana aan uga laban lahayn waxaan u baahanahay haddaan isku nimaado yaa abaabulaya waxaa isku soo dubadridaya Midenta Services Community Services and waa 17 February waxaa lagu qaadanaya Jane House waxaa jira kulamo badan oo ay qabteen qolooyinkan mataqaana booliiska dalkan Canada gaar ahaan magaalada Toronto iyo Somali community ilaa haddana wax ka soo naasacad ma laha wali dhibaatadu way taagan tahay marka kulamadan ma yihiin wax mataqaana Soomaali lagu madadaalinayo oo aan wax sax ah horta kulamadii badan oo la qabtay marna la wacday meerka marna u yimid police chiefka labadaba follow up ay sameeyeen mid waxaa la qabtay meeting waxaa la qabtay January 6 oo la rabo dadka in loo sheego waxyaabaha booliiska qabtaan iyo waxyaabaha victim service ka qabtaan dad badan saas u imaan 10 qofooda timid tan kale oo la qabtana waxa waaye meerka wuxuu hire gareeyay consultation company oo rabo inuu bedelo daweyga booliiska ay u handle gareeyaan dadka markay u tagaan especially markay ummadda Soomaaliyeed u tagaan laakiin culture kastuu rabaa habeenkaasina waxaan ku joognay 3 gabdhood ani aan wacay iyo aniga kaliya marka waxa waaye yaasiino haddaanan meelihiina lagu talagalay aan imaanin arrintiina aan faalo gareynaynin hadda qof wax noo qaban kartaa male anaga waxaan rabnaa in laundry dirtigeena qof kale noo dhaqo ma noo dhaqayo qof kale anaga inaan dhaqno wa Dr. Qasim arinta aan kolley ka wareystay walaashay ayaan wala socotaa Somali community in badan ay wadankan joogtaa qolooyinkan hadda barnaamijkan abaabulayn in badan ay hawshan ku dhex jireen oo ay wadeen marka maxaa ka soo bixi kara asada wallahi waxa ka soo bixi kara waxay tahay marba qaabka waan ognahay in badan oo soo socotay oo soo dhacday inaan wax weyn ayna ka soo bixinin laakiin hadda Soomaalida halkan joogta waxay u ekaadeen kuwa xoogaa bislaaday kuwa dabkii ku gubtay marka waxaa dhici kartaa inay markaan ay tii hore xoogaa ka xamaasad kulushahay maadaama ay ka xamaasad kulushahayna in ay xoogaa waxtar ah ay hore u kacdo oo ugu yaraan la helo furaha meesha ay ka imaanayaan dadka dilaya dadkanaga dadkan la dilaya kolley sida aan la soconno tan iyo wadanka markaa nimid ilaa hadda arrinta socotaa wax loo soo qabtan ilaa hadda ma laha waxaa jira Somali community halkan joogta oo budget ku qaatina arrimahaas mataqaana ay dhalinyarada wacyigeliyaan oo dhalinyarada ka soo saaraan dhibaatooyinka ku jira maalin walba shirar la qabtaa maalin walba hawlo ayaa lagu dhex jira wixii maadaama aysan kala socon maxaa mataqaana isleeda hortaag waxaan isleeyahay waxa ugu weyn hortaagan waxay tahay wada shaqayn la'aan ka dhex jirta ururada beelaha oo waxa la dhaho ethnic organizationska iyo shacabka waayo waxaa jirta istuhun Soomaalidu markii koowaad aan wadankan nimid aniga waxaa ka jirtay 62 urur baa jirtay oo Soomaalidu lahayd maanta hal bay iskugu soo arurtay ama labo marka waxa weeye in ay shacabkii ayaa ka go'an ururadii haddii ay wada shaqeeyaan waxaa dhici lahayd in ay ururadu codsadaan in ay ku raadsadaan maalgelin waxa ay laakiin arrintaas adiga hadda ka dhawaajay sida aad leedahay ethnic organization ama mataqaanaa beel aad leedahay dowladdan Canada dadka ay mataqaana wax siiso uma siiso beel ahaan waxay wax siiso Soomaali ahaan inay mataqaana mas'uul ka yihiin marka taasi maxaad mataqaana ku cadeynaysaa maya beelaha aan sheegayo waa Soomaalida waa hal beel marka Soomaalida beel ahaan ayaa ururkeedu saas u yahay kharash loogu siiyaa marka ururkaas kharashka la siinayo waxaa la rabaa inay soo qodsadaan ay proposal soo qortaan proposalkaas dhibka ka jira dadka inay soo ogaadaan ay soo baaraan ay ka bacdina proposal tifatira soo qoraan marka loo soo ansixiyo kadibna ay howlfulin galaan taasina waxay ku imaan kartaa ururkii iyo dadweynaha oo wada shaqeeya okay waxaad tiri processka waa mataqaana qofku waa inuu mataqaana wax qortaa barnaamijyadu qabanayo qortaa waxa uu rabo inuu sameeyo qortaa then dawladda mataqaana waxa ku sameynaysaa approve wixii in mataqaana hawsha qofkaas uu codsaday haddana waxaa aragtaa hawlihi ay codsadaan badanaa inta badan lama qabto marka dawladda way ay u sameynayso mataqaana dabagal hawlahaas wallahi arrintaas aniga intaan ku dhex jiray badanaa waxaan arkayaa eedda koowaad ma saarayo in aysan dawladdu ansixinin
oo dowladda keliyana ma aha waxa ururada kharashka siiya oo maalgeliya waxaa jira ururo aan dawli ahayn oo ururadan kaleeto maalgeliya waxaa jira macnaha dhinacyo badan bay leedahay trillium oo kaleeto maxaa united way oo kale ururadaas oo dhan baa jira oo laga heli karo haddana waxay tahay waxaan eedda saarayaa dhanka ururada laftigooda in ay marka koowaad ay howlgeliyaan oo ku shaqo geliyaan dad aqoon u leh in ay research soo sameeyaan oo dhibka jira soo baaraan proposalkiina qoraan proposalkana hal takhasus keliya ma qori karo waxaa loo baahan yahay mid xagga dhaqaalaha ka qora budgetka sida u soconayo mid researchka soo sameeya mid wixii ku takhasusay waxaas o dhan baa la rabaa in dad noocaas ay soo diyaariyaan kadibna ay dowladda ku qanciyaan marka lagu qanciyo proposalkan qofka uu ku qanco buu ansixin karaa way jirtaa dowladdu ay ku qanciyaan oo haddii aysan ku qancin lahayn professorad ayay qorayaan dowladda budget ma siisan sanadka laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay dhinaca dowladda kama hadlaya waxaan qofka markuu barnaamij uu soo qaato uusan ummaddii waxba ugu qabanayn dowladda way accountability qofkaas ugu sameynaysan ka hadlaya okay anaa kaaga jawaaba yaasino reasonka horta markii dowladda lacag bixiso organization ay lacagta siisaa organizationka waxay soo qoraan waraaqado iyo balaan oo the best ah laakiin organizationkii kuma dhaqaaqaan shaqadooda qaarna waa ku dhaqaaqaan qaarna waxaa laga yaabaa inay caawinaan hal qof ama laba qof borobaleenka marka jiro oo government accountability u samayn karin governmentga waxaa loo keenaa baybaro waxaa loo keenaa hal story oo wiil yar ah waxaa loo keenaa hal story oo gabar yar ah marka borobaleenka jiro waxaa waaye dadka la rabo inay accountabilityga governmentga la fariistaan oo dhahaan okay waxaana u baahanaa markay governmentga waxaan waa dhiibnay alora yaa siiseen organizationyaashay siiseen maxaana loo qabtay maxay sameeyeen marka accountabilityga kama imaanayso organizationka kamana imaanayso governmentga waxay ka imaaneen yaasino shacabka hooyooyinka marka maxaa leedahay shacabka Soomaaliyeed ayaa arrintii dabagal aad ku sameynayaan arrinta waxay u taalaa annageenoo taalaa annaga haddaan hurdada ka kicin oon ogaanin organizationyaasha lacagta la siiyo not necessary Soomaali kaliya in la siiyo waxaa la siiyaa xataa United Way la siiyaa waxaa la siiyaa organization la dhaho Albion Services la siiyaa oo program hayaan last 5 years marka waxa haddaanan organization annaga tigin oo ag fariisan oo dhan saani haysaa way ciyaalkeena uga faa'iideysan way ilmeena u caawin weysay hadhowna noqdo funding ku noqdo oo this is maxaan ku sheegaa organization lacagaa siisay lacagta way nagu qaateen waxnana ma noo qaban ay dhahaan accountability annagay naga imaanay organization kama imaanayso aad ayaa u mahadsantahay waxaa kaloo macni waxaan ku dari lahay oo kaleeto Soomaalidu inay mar kastaba horta ay xoogga saarto ma ahan urur ay Soomaali hogaamiso waxaa jira ururka carabta Soomaalidu xubin bay ka tahay marka Arab Federation ururka la dhaho kaleeto inay Soomaalidu xubinnimadooda ka muujiyaan oo shaqaalihiina ka mid noqdaan oo xiriirsadaan ururka Afrikaanka waxaa jira African Canadian Social Development Council ururkaasna inay ka mid noqdaan waxaa jira ururo kala badan marka Eastern African baa jira African Good baa jira Arab baa jira kulligood ilaahay amarkiis nasiib baan u leenahay inaan qolo walba mid aan member ka nahay marka inay kuwaas oo dhan ka faa'iideystaan bay tahay Soomaalida topicaas kulli Toronto iyo barnaamijka halkaas aan rabaa inaan ku joojiyo hadhowna ku soo noqon doonaa duwaalin waxaan rabaa inaan ka hadlo topic kale aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed mar walba ay uga hadasho oo ah xeradan weyn ee ku taala magaalada Muqdisho iyo Xalane yaa u taliya xalana sida aan wada ognahay waxa u taliya dad aan la aqoonin oo dawladda xataa aqoon qiyaastii dhowr dawladood ayaa dalka Soomaaliya kusoo bedelay maanta hadduu damca safiirka ama wasiirka hadduu tago in xalana hadduu tago waa inuu ballan qaataa marka ma isleenahay marka dawladda Soomaaliya nafskeeda maaha dawlad xor oo weli waa dawlad mataqaanaa westernka u shaqaysa waa run oo sidaas way tahay laakiin waxaa jirta inaan duruufta fiirino Soomaaliya macni waxaa ragaadsaday dawlad la'aan muddo dheer jirtay taasna waxay sababtay in aynan awood u yeelan ilaa haddeer oo 7-6 dawladood la isku soo bedbedelay haddana inaynan awood u yeelan in ay noqoto dawlad ayadu go'aankeeda qaadan kartaa waxaana keenaya tabarteeda dhaqaale ahaan ay ugu horeyso iyo midda ku xigta oo ah aqoon la'aan arrintaasi marka awgeed baa waxaa sababaysaa dalkeeni inaanan awood u lahayn in aan isla magaaladeennii meeshii madaxtooyadii hore ee Soomaaliya ka oli jirtay maartay afisyooni aan maartay maanta amar aan ka qaadanayno marka waa duruufna haysata laakiin duruuftaas sidii looga bixi lahaa in falankeed la galo ayay la tahay dhowr dawladood ayaa isku soo bedelay dalka ha noqdaan dawlado mataqaanaa ah ee ku meel gaar iyo dawlado si caadi hadda u saldhigtay
intaba ma aragna qoray qof ka hadla xerada xalana iyo xaalka ka socda waxa gudaheeda ka socda marka maxaad leedahay marka inaan saa lagu daayo lasaga aamuso dowladda saa isu bedelaan wallahi waxay iigu muuqataa aniga dhibka ugu weyn dowlad kasta oo hadda timaada in ay tahay mushkiladda ugu weyn oo haysataa horta kow aqoontii dadka shacabka soomaalida ayaa dowladda mar walba waxaa la rabaa dowlad macnaha aqoonteedu ay ka dhammaystiran tahay dhan walba inay soo doortaan marka ay dowladda soo doortaanna in ay ahaadaan ama dowladdii kuwa aamino aan qas ku wadinin ama ay ahaadaan kuwo macnaha wax ku soo kordhiya haddayna wax kusoo kordhinayn inay ammaan siiyaan dowladda marka dowladda ayaa iyana laga rabaa in aysan mar walba ku fekerin sidii ay kusoo noqon lahaayeen kalka dambe ee ay ku fekeraan siday u heli lahaayeen dad aqoon leh oo aqoontooda ku samata bixiya dowladdaas dowladda federaalka ee maanta jirta u malayn maayo kulley horta inay aqoon ku yartahay dadka hogaaminaya dad waxaa ku wada jira mutacalimiina shahaadooyin jaamacada wata siyaasiyiinna weligood soo ahaan jiray ilaa haddana ku dhex jira ummadda soomaaliyeed qaarkoodna markay arrimahaas ka hadlayaan badanaa waxay yidhaahdaan waxaa jira wax kaloo ka weyn oo ay ka hadli karin ayaa jira aqoonta keliya maaha haddaad aqoon kasta leedahay aadna ka hadli karin dhibaatada meesha taalla macnaheed waxay tahay qof ilaashanaya dantiisa kale inuu meesha ku joogo si wixii kale mataqaano isaga daayo marka ummadda soomaaliyeed ma waxaa ka maqan aad leedahay wadannimada ka maqan maya waxaa ka maqan aqoontii weli waxay aqoonta uga maqan tahay say uga maqan tahay noo qeex aqoonta ka hadlaysa aqoonta aan ka hadlayo waxay tahay marka waddankan la haysto dhulkiisa dhinaca loo haysto go-aankiisa loo samaynayo ayagii la leeyahay naga amar qaata waxaa haddii ay jiraan dad aqoon-yahano ah oo qaanuunka adduunka si fiican u yaqaana oo qodob u yaqaana oo dowlad walba markii sidaa lagu sameeyo sidii kale oo ay ula macaamili lahayn diblomaasiyadiina yaqaana qaanuunka caalamigaana yaqaana hadday buuxaan oo haddana doonistii dhab ah oo maman leh waxay ku dirqin lahaayeen dowladaha kale in ay ugu yaraan ammaan siiyaan oo aysan dhibaato u geysan tusaalena waxaan usoo qaadanayaa dowladda baaqi masar oo kaleeto waxa weeyaan shacabkeedu waxay ka mid yihiin dowladaha adduunka ugu aqoonta yar shacabka masar laakiin waxaa hormuudka inta u ah yaa waxay yihiin dad aqoonna leh dhiiranaanna leh aqoontaas iyo dhiiranaantaas awgeed bay waddankooda ay ku badbaadiyaan oo aan loogu yeerin wax walbaba arrinta masar adaa hadda ka dhawaajiyo ma rabo inaan horta gudaha u galo masar arrinteeda waxyaalo waxaa jira adigana aad ka leexleexanayso aadan rabin inaad gudaha u taabato soomaaliya ma aha maanta dowlad isku filan oo meel fadhida oo dakhligeeda haysta waxay doonaysa ayada samaysan karta waa dowladda masruufo xildhibaanadeeda lacag la siiyo marka arrimaha dadka badan ay hadda ka hadlaan waxay yidhahdaan dhibaatadaas waxay ka socotaa masruufkan iyo mashaarkan ayaga la siinayo maadaama filnaashadaas ay weli aysan gaarin adigana maanta waxaa ku noqonaysaa aqoonta ku noqonaysaa masar oo kale hadda maanta oo kale waa waddan ilaa 80 milyan oo dollar sanad kasta maraykanka u siiya hawsha ka socotana waa mataqaanaa barnaamij oo military ka socda oo danahii iyo waxay fujinayaan kulli meesha ka socda laakiin arrinta soomaaliya ma dhihi karnaa oo qof kastoo meesha yimaada qof ka hadla dan soomaaliyeed ma jirto qof kasta dantiisu meesha fadhiya wallahi waa sidaad sheegtay horta haddii qofka la masruufayo gacanta wax masruufaysaa baa mar walba sarraysa oo xoog leh masarna sidaad sheegtayba haddee ciidankooda oo dhan waa loo masruufaa marka ugu yaraan tan waxaa weeye qayb bay ku leedahay in masruufkaas la siinayo ay cadaadis ay ku keenayso inaysan hadli karin oo afwa cunay xisho ay tahay laakiin haddana saas ay tahay weli waxaa la samayn karaa iyada oo masruufkaasna si ayaga dan ugu jirto looga qaadanayo ama ay ku leeyihiin qaanuun caalamiga ugu leeyihiin ayaa haddana ay warkooda u caddaysan karaan ayaga oo markaasna dowladdii kale oo dan kala wadata ka dhaqalqaalin kara inay dantooda u sheegtaan kadibna ay u tusaan ayaguna sida ay dantooda ugu fulin karaan ama aysan suurtagal u ahayn inay ugu fulin karaan waxaan u gudbinayaa walaalkay weli diyaar maaha arrin kale ayaa kol dhawaad ka hadlayna oo ah social media iyo heestan gabadhan ay qaadayso oo ah ruux bukoo sariir saaran sawirkiisa soo qaada haddana sadaqa ku aruuri haddana ha siin sawiro badan ayaan aragnaa oo aad iyo aad sometimes calooshaada dhibaaya in social media la soo geliyo dadka keliya soo gelin kara sawirada noocaasna waa soomaali ma arkaysid ummad kale oo dunidan ku nool oo sawir qofka mataqaana ka agagaxaya social media soo gelina lacag ku qaadaya arrimahaas sawirta arrimahaas waxaa weeyaan aad baan gabadhaas horta ugu bogaadinayaa waan arrin aad u qaracan leh arrinta ummadda ilaahay waxaa weeyaan marka uu dhib ku dhaco oo gaajo ku dhacdo oo rafaad ku dhaco way sharaftooday ceshadaan laakiin soomaalida dhibaatada ugu weyn haysta waxay tahay inaysan sharaftooda ceshan tusaalena waxaan usoo qaadanayaa haddana waddan kaloo aan derisnahay yemen
waxaa haysta dhibka adduunka ugu badan oo soomaaliya aysan boqolkiiba 30 soo marinin oo kale maantana dadka yemen waxay diidaan xataa qaarkood in ay UN-ku ay sadaqa cunto u keentay diidaan marka sharaftaada inaad dhowratid ayaa aad iyo aad muhiim u ah dowladda waxa shacabka soo gudbiyaa mar walbaba sawiradaasna waa dad ku qaraabta oo aan shaqo kale lahayn oo businesska ka galay in ay dad kale sawiradooda soo qaataan wax silcisan oo wax xataa ay photoshop ku sameeyeen oo beenbeen xataa soo dhejiyaan markay soo dhejiyaanna lacag fara badan arursada lacagta ay arursadaanna meel ay geeyaan aan la aqoonin magaca diin baana badanaa lagu qaadaa marka waa inaan arrintaas taas ay ummaddaas isku xishoodaan ay allahooda xusuustaan ay arkaan waxa ay cunayaan in ay tahay innahum ya'kuluuna amwaala annaasi suxtan in ay suxtig si ah ay maalka dadweynaha ku cunayaan marka arrinta ayada ah ayagana waa uga naseexaynayaa ilaahay ha garansiiyo ummadda soomaaliyeedna sharafkeeda ha ilaashato haddana waxaan ugu gudbinaa walaalkay xuseen oo inoo akhrin doona social mediaha waa tahay waad mahadsan tahay muuse dabcan social mediahu sidaad mooday maaha waa tahay heesta ayaa sidaa ahay dhegeystayaasha dhinaca social media amaba facebook liveka commentiyadooda ka dhiibanaya waxaa ka mid ah dabcan qasbiye faadimo waxa ay leedahay masha allah barnaamijka oo ku faraxsanaya radio one soomaaliya dabcan waad mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa bashiir wadani wuxuu leeyahay dadka soomaaliya barnaamijka ma u furan yahay inay ka hadlaan dabcan dhammaan soomaalidu qof walba oo fikrad haya waa uu markaa waa u furan yahay inuu barnaamij ka qayb galo waxaa naga soo wici karaan 647 sidoo kale golaha midnimada soomaaliyeed waxa uu leeyahay waa idinku hambalyaynayaa barnaamijka aad wadaan dabcan dhegle mayon wuxuu leeyahay waa ku salaamay ama waa idin salaam dhammaantiin waa abdiraxiim muumin oo london dabcan in badan markaa idinkala socda dabcan way mahadsan yihin dhegeystayaasha dhammaantood ee fikradda dhinaca facebook ee barnaamijka uga qaadanaya social mediahu sidaa ma ahayo noo joogtay laakiin ma rabno inaan ku laabanno social media iyo heesta dabcan waxyaaba badanaa ku jira heesta qaasimo dabcan ma ahayn oo keliya bukaan sariir saaran wariyaashu laftooda waxaa laga hadlayay inaysan wixii warka inaysan kala turjumin madaxweynihii yimaadaba inaysan dhaleecin marka howsha social media maalin ayaan barnaamijkeena ku lafaguri doonaa laakiin mus ayaa garabkii hadda fadhiya musow dabcan saddexdiinaba markaan liiga raba in badan ayaa waddankan joogteen wax badanna doorashooyinkooda iyo qaabka ay u socdaan iyo qaabka doorashooyinka dalkan in badan ayaad xoog badan ka haysaan dabcan sidaan ognahay hadda doorashada 24aad ee gobolka Ontario waxay dhici doontaa 7 bisha June ee sanadkan oo maalin khamiis dabcan ay ku beegan marka muuse waan siin doonaa qaasim iyo ayaan laftoodu isbedelada laba ayaan u kala qaadi doonaa isbedeladan imika cusub iyo waliba Soomaalidu inaga ahaan maxaan nala gudboon yaan u codeynaa maxaan codkaana ku bedelanaa laakiin haddaan ku hormaro muuse waxa leeyahay isbedelo badan ayaa jira oo ugu horeyso in aanan lacago markaa ururada iskaashatooyinka iyo ururada kaleba aanay xisbiyadu ay ku taageeri karin laakiin shakhsiyaadku marka waxaa leeyahay way taageeri karaan oo way siin karaan marka muuse isbedeladan imika cusub iyo hogaamiyaal cusub aad ogtahay Catherine Wayne premierka inay la tartamayso bal arrimahan isbedeladan cusub iyo guud ahaan doorashooyinkan haddii aad waxay ka taabato absolutely taasaan been ahayn xuseen nuur xaaji waa ku salaamay runtii bal mar labaad aan dadweynaha facebook nagala socdo mar labaad waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waqtigiina qaaliga aad nasiisaan runtii haddaan ka hadlo doorashada dhici doonta June 7 runtii waxaa ku tartami doona 3 xisbi ee runtii la kala yiraahdo waa liberaalka oo hadda waddankan talada ama gobolka magaalada gobolka Ontario haysta xisbiga labaad la tartami doona hadda oppositionka ahna waa conservative-ka oo BC-ga oo probably leadership haddeertaan uu haysto oo runtii leaderkii u tartami lahaaba haddeertaan march 6deeda laftirkooda ay dhici doonto qofkii runtii ugu qaybgeli lahaa doorashada June 7 dhici doonto iyo runtii islaamta kale ee runtii hogaamisa iyagana xisbiga la yiraahdo NDP waa runtii xisbiga ninka Soomaaliyeed ee Faisal uu runtii u tartami doona oo asaga aan runtii ka rajayn doono inuu ku soo bixi doono xaafadda York South Western runtii waxaan leenahay arrimahaas intuu doorashooyinka June 7 dhici doona marka maxaa dan u ah waa Soomaalida maxaa dan u ah waxaa dan u ah waxyaabo badan ay xisbiyada ballan qaadaan laakiin se hadda markii doorashooyinka ay soo dhawaadaan waxyaabaha la ballan qaado qaarkood lama fulin laakiin se dadka Soomaalida dad hanti leh oo runtii ma ahan ama canshuurahaas intuu waxa waaye dadka ganacsatada laga dhimaayo wax u tiri doono laakiin waxyaabaha anaga wax aan ka faa'iidi doono waa maxaa laga qaban doonaa waxbarashada maxaa lagu soo kordhin doonaa waxbarashada waxaa waxbarashada lagu soo kordhin doonaa in jaamacadihii free laga dhigay
in jaamacadihii waxa waaye dadkeenii masaakiinta ahaa ee aanan osaabka ama deymaha marka hore madaxa loo gelin jiray in haddeertaan ay runtii ka faa'iidaysan karaan. maxaa kaloo ka faa'iidaysan karnaa? waxaan ka faa'iidaysan karnaa caafimaadka la ballan qaaday. caafimaadka carruurtaada ilaa ay 4 sano ay ka gaaraan inay runtii adiga ay caafimaad ahaan ama ohobkooda ay isticmaali karaan oo aysan lacag bixinaynin oo ay dantiistahooda iyo coveragekooda ilaa 4 la coverage gareynaya. marka maxaa dan noogu jirto? xisbiyada waxyaabaha noocaasa ballan qaada ayaa dan noogu jirta. laakiinse annaga xisbiyada ballan qaadaya in mataqaanaa guryihii waxa waaye taxationkoodii la yareynayo, in landskii dhulkoodii wax iska bedeleen. marka dad masaakiino waxaan nahay newcomers oo last 10 years waddankaanimad beero badan ma lihin, dhul badan ma lihin, hanti badan kuma lihin. laakiinse carruurta aan korinayno inaysan runtii dheebta iyo dhibaato badan aysan runtii ku barbaarin ayaa annaga noo muhiim ah. marka waxyaabahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka eegno. marka hadda waa xisbiyada arrimaha ballan qaadaya. arrimahan waxaa ballan qaadayo xisbiga liberaalka hadda waddankan haysto iyo xisbiga kale ee runtii NDP-ga lagu magacaabo. marka xisbiga NDP-ga waa runtii xisbiyada badanaa waxa waa dadka masaakiinta u ololeeya. laakiinse badanaa talada waddankan inta badan waxaa ugu dambeysay waqtigii Babrey, runtii waxa ay ugu dambeysay almost waa 12 sano ka hor, ku dhawaad 20 sano talada kuma aysan guulaysan. laakiinse haddeertaan Xuseenow xisbiga haddeertaan talada haaya runtii waxyaaba badan dadka personality ay ku nacayaan ayaa jira. oo runtii xisbiga liberaalka waxyaabaha personality lagu nacayo waxay tahay islaamta haysato ayaa qoomiyad noocaas ee eticskeeda waxyaaba noocaas ku nacayaan. laakiinse annaga maxaa dan noo ah? waa annaga sariirteeda la seexan mayno, businesskeeda hoose shaqo kuma lihin. laakiinse waxaa dan noogu jiro waxyaabaha ay ballan qaadayso. maxaa dan aan u aragnaa? waxa aan dan u aragno maxay tahay? maxaa dan noogu jirto aan ka dhexeli karnaa? caafimaadka waa ka dhexeli karnaa. haddii ay xisbiyada kale kula tartamaan codkooda waa ka soo leexinaynaa. laakiinse haddii aysan iyagana waxa waaye dhankaasitood aysan runtii u codeynin waxbarashadii oo kale, problemka noogu weyn ee aan mar walba jeclahay aan ka hadli doona hadhowtina waxay noqon doontaa sida aan jeclahay problemada naga haysta iskuulaadka, especially TDSB-ga ayaa noogu daran. inkastoo ay tahay city level laakiinse professionalka ay waxbarashada ay qaabishiyiin. maxay tahay dhibaatada soomaalida haysato? waxaa arkaysaa ardayga markuu soo gaaray grade 9 in waxa waa apply iyo academic uu kala dooranayo. marka mostly soomaalida ama dadkan madmadowna waxaa lagu qasbaa waxyaabaha applyga la yirahdo. mar allaala markay apply galaan almost waxa waaye waa isdhan. qofkaasi futurekiisa wuxuu noqonayaa inuu jaamacado waaweyn uusan helin, inuusan college helin, inuusan meel mustaqbalkiisa uusan gaarsiin, because waxa waaye wuxuu ku dhacay markiiba arrintaasi todo waxba ku failgaroob oo markii doorashadii ayuu ku baaba'ay oo apply ayuu doortay. apply markuu doortana qofkii waxbarashadiisii mustaqbal fiican kama gaarka, waa inuu warshado iyo low level shaqo u dhamaanayo. qodobka kale oo aan jeclahay mar walba inaan ka hadalna insha allah weega soo socdana Xuseeno waxay tahay iyo ayaana iyo waxa waa Dr. Qaasim iyo saaxiibkay waaba naga kac Yaasiin waxa waa. laakiin waxaan leenahay weega soo socda adaa qodobkan ka hadli doona hadduu ilaa ka raali noqdo. qodobkan muxuu yahay? 2019 waxaa la maqalnay in marijuana la fasaxi doono. waxaan la soconaa dad badan waxaan u maleynayaa inay tahay July 2018 in la fasaxi doono. laakiin officially waxyaabaha jiri doona waxay tahay in marijuanada meel walba waa lagu iibinaya July 19. laakiinse dad badan oo criminal record ku jira ayaa jira oo madowgeena iyo Soomaalideena iyo dhallinyaradeenna carruurteena u badan. ma laga weefgareyn doonaa? oo runtii markii haddii la fasaxay waa ay criminal record u yihiin ayaa qodobkaas ka hadli doonta hadduu ilaa kiraal noqdo. waa mahadsantaa Muuse. horta arrintan la fasaxay oo Soomaalida ay ka dhigayso big deal, aniga big deal uma arka, sababtoo ah geedaan magaaladay taalaa, meel kastaa ka gadan kartaa. ilmahena say ganka ku helaan. weligiin intaa fariisateen kursi ma qaateen ma fikirteen ilmahena say gan ku helaan. ganka waxa waa lagu helaa under the table. haddana magaaladan wuu buuxaa, maalin kastaa la helaa. see lagu joojinaa? ma la joojin karo, sababtoo dadka gadana lama yaqaano, carruurteenana ma sheegaa qofkay ka gateen. taas horta ogaada. labo, aan usoo jeesano marka marijuanadan haddii liiga laga dhigo sharciyaa lasoo saaray, sharciyaa daba socdo. qofaan aan laysan u haysanin ama qofaan doctor letter paper u siinin mas qaadan karo. waa koow. labo, qof aan limit jeebkiisa ku haysto waa laga qaadaa oo maxaan ku sheega waa la xiraa oo waa new sharci soo baxay. meel kasta legalaa laga dhigaa, laakiin legalnimadeeda waxaa la socoto sharciyaa la socoto. ayadoo hadda legal ahayn last couple years la isticmaalayo, meelaha lagu gadooyo, wax lagu soo qaadanayo under the table ay tahay. markasta waxaa fiican waxaan legal laga dhigo si loo dabagalo oona loo ogaado. dadku waxay leeyihiin sida Yurub ay noqonay meeshaan waxaasay noqonay. no, waayo war xumo tashiilkan waddankan sharci uu leeyahay, sharcigiisa qofka ma talaabi karto. anaga Yurub ma joogno, anaga Africa ma joogno, North America joognaa.
waddankan sharciyo le sharcigiisa loo daayo marka aniga ahaanteyda uma arko big deal wayna sameeyaan caruurteena maalin kasteena wataan maalin kastaa la gadaa baabuur kastaa lagu gadaa xaafad kastaana lagu gadaa waata ayaanood mahadsan tahay dabcan imika ma ahan marjuwaanaha amaba waxa loo yaqaano xashiishku mid sharciya laakiin saameyntiisa inaga community ahaan uu nagu yeelan karo dabcan barnaamijyadeena kale ayaan ku lafaguri doonaa hadduu rabbi karaan noqdo dr qaasim dabcan waxaa leeyahay isbedelada imika cusub aan ka hormariyo dhegeyste markaan sheekh aadan daahir maxamed wuxuu leeyahay aynu runta ka sheegno arrinta xalane soomaaliya waxay lumisay madax banaanidii dalka xor ma ahan maxaa ugu leexanaynaa dhul bad iyo cirba kama talino dabcan sheekh aadan daahir waa runtiis oo wasiirro ayaa ka hadlay in xalane ay tahay magaalo gooniya oo markaa xitaa wasiiradu aana geli karin waan usoo laaban doonaa qodobkan sheekh aadan laftiisu waa nagala qayb qaadan kara haddii uu soo waco iyo dhanka facebook iyo dhanka telefonka labaduba laakiin middan ontario haddii aan sii guda galno innagoo aana iloobi doono arrintan xalane dabcan aan rajaynayo muse inaan waxa uun ka niraahno isbedelada waxaa ka mid a dabcan gobolka ontario 2018 in 15 kursi oo cusub magaalooyinka dhan markaa lagu soo kordhiyey xisbiga in uu helo aqlabiyad waxaa leeyahay wuxuu u baahan yahay 63 kursi imika liberaalka waxay haystaan 57 halka b c s ka ay haystaan 29 ndb gana 20 ayay haystaan innaga marka su-aasha waxay tahay qaasim soomaali haddaan nahay dabcan faysal oo keliya ma aha waxaa jira shaksi kale soomaali dabcan u sharaxa laftiisu innaga maxaan ku yeelan karnaa imise 15kan cusub lagu kordhiyey haddii innaga ka soomaali ahaan iyo ka community ahaanba aanan waxba ku lahayn macno badan tan guud dadkaan la simannahay laakiin sidee ku dagaalami karnaa macnaha sidee aan dagaalka midkii sidee u istaagi karnaa aan isu muujin karnaa u taageeri karnaa murashaxiinteena si markaa kuraastan aan wax ugu yeelano waxa ugu weyn aan ku taageeri karno waxay tahay sida mar walba anigu aan sheego horta aqoontaan tixgeliyaa marka waxaan leeyahay dadka tartamaya waa inay ahaadaan dad khibrad iyo aqoon iyo madaalanimo karti isku darsaday marka waxaan u baahannahay inaan haddana nidaamino qaabka loo tartamayo iyada oo macnaha aan masayr ku dhisnayn in qofkeen marka uu jago halkaa u tartamo uusan mid kale asaguna isla iyada usoo tartamin laakiin meel kale uu u tartamo ama mid kaleo federal hadday taas ahayd mid u tartamo provincial ah marka sidaas markii waxay u kala duwan yihiin oo hal qof oo codkiisa wada siin karo baan sidaas ku badbaadi karnaa waxaan u baahannahay in dadka anagu ay noqdaan dad himadooda ay tahay siyaasadda dalka ay joogaan waxaan ka hadlaynaa macnaha waddan walbaba dad kalena ay siyaasadooda ay ahaato tii soomaaliya dad kalena ay ahaato horumarka dad kalena ay noqoto caruur korintii macnaha in aan job description dhexdeena ku samaysano qof walba uu ogaado marka meesha uu buuxin karo qofka kalena uu markaa uga dambeeyo oo qof walba waxa uu qaban karaa loo soo qadimayaa ay arrintu ahaato sidaas baan isu nidaamin karnaa in himaduna nagu jirto in aanaan noqon dad u arka inaan marti ku nahay waddanka inaan ogaano waddankan in la wada leeyahay aan qaybtaada iyo xaqaagan aad ku leedahay qof walba inuu intaa dareemo aadan ismartiyeyn sidaasaan dhihi lahaa waa tahay dr qaasim waa mahadsan tahay muse dabcan waxaad ka dhawaajisay in su-aasha ugu dambeysay adiga ayaan dabcan idin weydiinayo xisbigan liberaalka waxyaabaha catherine wayne ee ballan qaaday waxaa ka mid ah ayna fulisay dabcan arrintan ku aadan minimum wageka waxaa ka mid ah arrintan kale ku aadan prescriptionka daawooyinka carruurta ilaa iyo 14 muso laftaada aad ka dhawaajisay dhanka jaamacadaha ndb laftoodu waxay ballan qaadeen in ay ka badan 14kan ay gaarsiin doonaan xilliga ugu soo dhow weliba 15 ay gaarsiin doonaan iyadoo 19 oo catherine wayne ama liberaalku ay ballan qaadeen la gaarin haddaba loolanka xisbiyadan iyo bandhigooda sidee uga faa'iidaysan karnaa ka community ahaan sidee markaa hal cod aan u yeelan karnaa dadkeenuse muse waxaa lagu eedaa inaysan bocodaynin taa lafteedu waxaa isweydiin mudan innaga horta ma codaynaa si aan waxaan raadinayna u helno arrintaana doorashadan ma uga faa'iidaysan karnaa dilalkan imika jira innagoo soo bandhigayna codkeenna hal dhinac ayuu waxaan joognaa waddan oo dimuqraadiya dabcan xorriyadna ay ka jirto aan lala gaban codadka iyo xisbiyada la taageero innagoo dhehena innagoo codkeenna waxaan siin doonaa ciddan iyo ciddan ama xisbigan beddelkeedu waxaan rabnaa dhibaatooyinkan in waxna laga qabto inkastoo aan ogahay inaan ka nahay
aqal maxaa la lahaa minority amaba dad aad u yar marka loo fiiriyo communitiyada kale maxay kula tahay muse absolutely runtii waa waqtiga iska ciriiriya runtii wax badan kama dhahaayo laakiinse waxaan leenahay wax walba waqti ayay leeyihiin xisbigan liberaalka waddankan hadda haysta waxay soo maamulayeen gobolkan ontario last 15 almost 16 17 years ayay kusii socotaa marka waxay u muuqataa dad badan in horta isbedel doon ay yihiin isbedelka ay doonayeen haddeertaan wuxuu u muuqan doonaa isbedel runtii ku imaan doona taankii ama n d b da waqtigii wax la siin lahaa ama gabadha magaceeda la yidhahda andre howard xisbiga n d b da xukunta sababtaa saas aan lehay waxay tahay markii marka hore rajada waxay u badneed dhanka conservativeka inuu ciriiri gelin doono ama oppositionka kuwaad uu noqon doono laakiinse oppositionkii xisbiga conservativeka waxaa ku dhacay problem aad u fara badan caqabada aad u fara badan leadershipka ayay hadda ku dagaalamayaan iyadoo lagu jiro xilligii doorashada weyn ay dhici lahayd marka this time waxay aniga igula muuqataa andre howard gabadha la yidhahdo oo runtii xaafadaha hamilton ama runtii stony creek la yidhahda ka soo baxda in ay timekeeda tahay ayaan aniga ayay ugula muuqataa aniga ahaanna ase muuse kuulow ahaanna ma ahan radio one soomaaliya waxaan taageersanahay andre howard oo runtii aan leeyahay this is her time waanay soo bixi doontaa ase cod ahaanna waa iga helaysaa aniga ayaan ugu dambeyntii qodobkan ontario adigu ku tirsanaya dabcan waa mahadsantaha xuseenow horta qof kastoo ibni aadana especially soomaalida runtaa waaye ma boodaan ma baxaan waxa u keenayana waxa waaye waxay u maleeyaan waddankan asaga inuu go-aankiisa gaarayo waddankan go-aankiisa ma gaarayo waddankan aduu kuu soo bandhigtay doorashada adaa ku shaqo leh waa soo bixi kartaa sideedaba ma fahanti laakiin qof kasta doorashadiisa asaa iskale qofaan ku qasbaayo male qofaan wax dhahayo doorashadaas qaado iyo qof heblo u food ma jiro shaqsiyad ahaanteeda anigu intaasoo sanaan deganaa ontario especially magaalada toronto weligay ma arkin waxbarasho free laga dhigay waana waxyaabaha keliya oon aad ugu farxay sababtoo ah halkii cunug markuu jaamacadda dhameeyo 30,000 40,000 oo wuxuu wataa oo loon ah oo la bixin karin oo interest ku socdaan oo xalaal ahayn oo maaragtay wax qalad ay tahay cunugiina uu bixin karin maadaama cunugaas xataa lacagtaas uu bixin karin een hadduuna karyeer fiican helin marka ani ahaantay waxbarashada aada ugu farxay waana shayga keliya ay ka dhigeen free intaasoo sana u jeeday government haysatay free ay ka dhigan waana ku faraxsanahay inta kalena voodkeyga anaa iskale qofkaan u voodayna anaa ku shaqo leh waad mahadsantahay ayaan waad mahadsantahay badre sheekh axmed waxay leedahay soomaaliya cadaaladda soomaalida cadaaladda ummadda soomaaliyeed inay u hadlaan ha ku dadaalaan kacaanna looma baahno madaxweynaha dabcan maaha gabar aroos ayay tiri waa in laga hadlaa runta waxay qabteen oo fiican waa in la sheegaa wixii xun ee ay sameeyeenna waa in markaa la sameeya ayay tiri sharciga soomaaliya u yaalla iyo xuquuq bani aadamkana waa in la dhooro waad mahadsan tahay badra dr qasmaysiina arrinta ontario isu soo koobaya kadibna waxaan isku dayaynaa laba qodob middan ku aadan dowladdu inaysan waxba ka qaban cabdi qaybdiid gurigiisa weerarkii loo geystay iyo diyaaradahan soo noqnoqday muuse inuu laftiisa qodobka ugu dambeeya uu ka yidhaahdo kadib idaacaddan ayaan soo gabagabin doonaa qasim waxaan ka dhihi lahaa midda gobolka ontario doorashada horta waa midda koowaade waxaan xoogaa rajeynayaa in qodob fikrad xun oo aan beri hore aniga markii aan la socday wadaadada nooca loo yaqaano wahabism waxaan aad u faafin jirnay in aan dhul wadamo gaalaan dhahnaa inaan wadamada gaalada aan la tegin haddii la tagana aan doorasho laga qayb gelin inay xaaraan tahay sheekhi la rabo hadda dil weyday wuxuu dhahayaa waa xaaraan marka laakiin hadda xoogaa inaan naftina soo gashay way u eg tahay oo waxun aan dareemayno marka wadaadadii laftigoodii waxaan leeyahay fadlan idinkuna waxaa joojiya inaysan shaqaynayn hore u ogaateen maanta marka guubaabiya inay dadkeenu doorashada ka qayb galaan oo ka qayb galaan maahane inay cadaaladda ka bartaan waddankan cadaaladda aan ka baranayno maxaa ugu horreysaa waxaa ugu horreysaa dimuqraadiyadda oo aan horeyba qalad nolol kaga fahamsiiyey laakiin runtii sax ah oo bilqisdi ereyga ah qur-aanka ilaahay uu ku celceliyey marka dimuqraadiyaddaas iyo qisdiga cadaaladdaas waxa ugu weyn oo aan hadda ka garanayna waxay tahay qodobka hadda la sheegay ee ah in aysan shirkaduhu maalgelin ku samaynin dadka tartamaya waayo shirkadaha maalgelinta ay sameeyaan anugu khibradda ugu weyn oo aan ku lahay waxay tahay soomaaliyaan madaxweyne ugu tartamay waxa ay soo martay ilaa 10 urur oo soo hoosta iga soo galay oo yiri annaga kharash ku siinayna markaad qabsato annagana intaa noo fuli waxaa ka mid ahaa masiixiyiinta soomaalida waxaa ka mid ahaa kuwo kaloo badan marka kulli waxaa la yidhi hawshanada noo fuli waxbaan ku siinaynaa haddeer sidaasay marka shirkaduhu ku shaqaystaan sidaas darteed macnaha ay dadku oo shirkadahaas aad baan ugu farxay in shirkadaha inay maalgeliyaan dadka tartamaya
maantay waddankan laga xaaraantimeeyey annaguna inaan taa ka baranno waana arrin aada u fiican micnaha qaabka ay ku socoto waa qaab cadaalada soomaalidu joogta waddamadan reer galbeedka waxaan leeyahay fursad weyn baad haysataan fursad aada waddankaas aada joogtaanna miro dhal kaga noqotaan kii aad ka timaadeenna miro dhal kaga noqotaan fadlan ha ismartiyeynina soo dhexgala dadkeena waa tahay waad mahadsan tahay muse qodobkan ku saabsan senator cabdi xasan cawaale qaybdiid sidaan ognahay markii gurigiisa la weeraray warbaahinta ayuu la hadlay xitaa raggii mucaaradka ee markaa gurigiisu ku booqday wuxuu u sheegay hawshan inay dowladda ku jirto laakiin hadda 330 maalin kadib waxa uu tilmaamay in cidna aysan waxba ka qaban maxay kula tahay dhibaatadan qof xasaanad leh oo senator ah haddana ah weliba guddoomiyaha guddiga dib oogista dastuurka ee baarlamanka labada baarlamaan senadka iyo shacabka in weli aanan waxba laga qaban maxay kula tahay arrintan qaabkee wax looga qaban karaa iyo cabashada cabdi qaybdi lafteeda horta runtii waa wax laga naxo waana wax lala yaabo runtii because senator cabdi xasan cawaale qaybdiid waa runtii senator soomaaliyeed ama runtii nin halgamaa ah ama runtii xildhibaan ahaa ama maamul goboleed madax ka soo noqday waa nin muwaadin soomaaliyeed ah waddankan runtii usoo halgamay ama ha noqdaan dhanka kale ama ha noqdaan dhankay doonto ha ahaatee laakiinse haddeertaa wuxuu sheeganayaa in dhibaato loo geysan lahaa laakiin ay u geysan lahaayeen dowladda imaaraadka iyo abaabulkeedii waa tahay marka dowladda imaaraadka iyo abaabulkeedii dowladda waxaan xasuusanaa in ay tay soo baxday prime ministerkii uu u tegey uu apologize u bixiyey marka hore laakiinse waxyaabihii baaritaankii la sameeyey wuxuu ogaaday iyo sida uu sheegayay in isagii markuu xaaskiisa airboortka ka soo waday in qadkaa lagu jiraa qadkaa lagu jiraa waxaa ku jira sheekh nuur abubakar qaasim from minneapolis oo raba inuu ka hadlo arrinta xalane sheekh nuur kusoo dhawow warbaahinta radio alif radio one Somalia warahmatullahi wabarakatuh waa dhawahay sheekh nuur waxaan maanta falanqeynaynay arrintan xalane iyo dhibka ka jira dowladda Soomaaliya dadka ka shaqeeya aysan geli karin gudaha bal arrimahaas warta adiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا برا كونفرنس أنا وحاسس شرب وحالة عيادة استمكة طبعا دي حدا لكن كجار دولي وحيدها absolutely شواي والله تليها وحواي قفك هتنو تلوي والله تلينا يا هاسي فهيك يرتي مركي سوالي ده تشوي دي ودبعت لك كل ما يتنكي فدا فرعات بدات waa garana sheekh nuur waa waxaan mas-uul ka nahay laakiinse runtii dalka soomaaliya waxaa la leeyahay kheyraad aad u fara badan ayaa ku jira oo runtii 1968 haddaad runtii informationkaas aad heshay oo prime minister dalka waxaa ka ahaa cigaal in waxa waaye waddanka uranium aad u fara badan soomaaliya inay ku jirto ayaa la ogaaday markaasaa la yidhi soomaaliya hadday burburayso waxay ka burburi doontaa uraniumka meesha ciraaq ay kaga burburtay oilka marka uraniumkaasito taamkiisii haddeertaan waxaan la socnaa ama aan maqalnaa in buurha kaba iyo ilaa ay haddeertaan jemalo waaweyn habeen kasta xalana laga dhoofiyo oo baabuurta iyagoo qafilan teendhooyin ay saarsaaran yihiin waaweyn aan la aqoonin inay meesha soo maraan marka siyaasadahaas iyo waxyaabahaas ayaa qarsoon oo meeshii xalana ay waxa waaye gabaad ugu noqotay dadkaas ma aaminsantaha arrimaha noocaasa
dowlado kale oo maaragtay nuclear farmka samaysanayo marka iyada ujeedkeeda waxay ka mid tahay cabsida ay ku jirto marka anigu runtii ma qabo arrintaasi waa wax ugu maaragtay ugu dacayreenaya international community dowladaha daneeya waxay ka go-an soomaaliya inay degto laakiin dadkii soomaaliya ka degi laadahay ma aha ajnabiga waxa weeye soomaalida waa ilaa aan gaarno inaan anaga naftirkeena maxaa naga qaldan aan idhaahno oo dembiyada aan anaga leenahay inaan dad kala saarno maaha sheekh nuur dad badanaa raba inay wax ku weydiiyaan waa gartay laakiin runtii waxa waaye arrintan conspiracy ma aha laakiinse waxa waaye dalalna ma ahan waxa xalana hadda joogo xalana waxa waaye amisom taas laakiin dhanka kale waxa waaye kambaniye aad u waaweyn hoteello aad u waaweyn businessyo aad u waaweyn in meesha ku yaalaan oo aan dowlada iyo wax leh aba yaraatay aanan aqoonaa jirto laakiin waxaan kuu sheegayaa not only kheyraadka soomaaliya ma ahan oil iyo uranium laakiin waxaan kuu sheegayaa in wax byrax la yidhahdo la kariyad gareeye ee waxaa arkaysaa kumanaan kun ee dowladooda caalamka inay maraakiib meesha keensadeen oo runtii soomaaliya baddeeda iyo dhulkeeda lagu dagaalamayo marka taasitod ma ahan wax conspiracy waa wax reality oo jira marka ma aaminsan tahay still in soomaaliya waxa waaye burburkeeda siyaabo aad u fara badan looga faa'iidaysanayo walaalow arrinta oo xalane waa kala qaadaya arrinta xalane hoteelada aad sheegtay waa run hotel waa jiraan in samaysay taas waxaa loo sameeyey waxa waaye dadkan international community meeshaan dadka horta waddanka jooga badanaa mandate ku joogaan dowlada maaragtay a lot of security-gooda iyo waxooda maaragtay u hagaaga markii hore waxay deganaayeen county maxaa dhahaa meelo yaryar laakiin si ay maaragtay ummadii ma dhex degi karaan taas waa security sake of security waaye in maaragtay meesha wax ka samaysaan laakiin dadka joogo inta badan laakiin dowladaha badanaa hadda dowladda british oo kale 200 ay soo dirtay ciidan maraykanaa joogo sidoo dowladda maraykanka ay sheegtay 300 iyo xoogaa ah oo ay tababarayaan ciidamada soomaalida marka waxaan kaloo xiro ku leh meesha amazon unsom waagii hore waxaan ku doodi jirnay war kenya la joogaan ay waddankeena usoo guuraan waddankii bay soo guureen haddana waxaa leedihiin maaragtay maxaa la yidhahdaa waxbaa nalaga xadaya marka idinku bal intaa dadka kala eedeynaysaa bal idinku dadka kiiniya oo aan fiirin oo maxaa naga qaldan waa garanaa inkastoo wax markay shalay nairobi joogeen walaalkiis waxaa la dhahay soomaaliya ayagana waxay ku doodayeen in soomaaliya aysan nabadooda suuragal ku ahayn ay joogaan nairobi bay lacagtii oo dhan gelinayeen waa dood dheer ka bacdi waxaa la yidhaha lasoo guuri waa lasoo guuri haddana dhagaxay naga xadooyaan dad badan weli jira laakiin waa tahay waxa weeyaan abukar ina abukar qaasim waa aad baa umahadsan tahay aniga oo ka hadlaya 2 PhD oo aan ka qoray midna beriga soomaaliya sidii loo barwaaqayn lahaa midna badda soomaaliya sidii loo nabdayn lahaa baan waxaan ka tis qaadayaa qodobkan ah in ay dadkani wax naga qaadanayaan iyan kale 1993 markii ay UNITAF iyo UNISOM ay joogeen dalka ayaa buurtaas buurhakaba la raranayay markaas ahayd waa 93 ilaa haddana wixii sidii bay u socdaan arrintan burcadbadeedkan ah oo ah maanta midda keentay askar ay imaaraadku leeyihiin in xamar inta lagu tababaro ay cidday rabaan ay soo qafaashaan waxaa keenay burcadbadeedka marmarsiyaheedii marka waxaasoo dhan marka laysku soo duubo waxaa meesha ku jirta oon aniga aan dareemay oon baaritaankayga ila galay inay jiraan dowladaha soomaaliya soo usu yimid inay kaalmeeyaan oo wax u qabtaan waa kala hadaf duwan yihiin waa kala ujeedo duwan yihiin qaarkood bay ka dhab tahay qaarkoodna kama dhab ahan qaarkoodna dana kala eeganayaan haddana kuwa ay ka dhab tahay laftigooda ayaa ciidankoodu kala nooc yahay oo uusan isi sii xukumin oo waxaa dhici karta dowladdii oo cadaalad ku shaqaynaysaa ciidankoodii in ay kooxbo mar iska goosato oo waxay rabto soo bililiqaysato soomaaliyana waxay u dhimanaysaa sida congo ay ugu dhimanaysay dahab oo ay maxay ta ugu dhimanayaan ciraaq ugu dhimatay saliidda oilka ugu dhimatay oo libiya sidaa ugu dhimatay oo yemen ay ugu dhimatay jidka wadadanada marinkaas baabumandeb ayaa annaguna waxaan ugu dhimanaynaa wax la dhaho uranium iyo khayraadyo kale oo aad fara badan oo badda ku dhex jira marka arrintaasa jirta sheekh nurow weliba qadma ku jirtaa waxaa ka dhawaajisay in amazon iyo groupkooda marka hore ay ka shaqayn jireen nairobi
soomaaliyana in badan ay mataqaana ku doodayeen in lasoo wareejiyo dalka gudihiisa loo soo wareejiyo isla markaana hadda dadka qaarkood ay leeyihin waxbaana laga xadaya marka maxaad leedahay marka wareejitaanka lasoo wareejiyey oo soomaaliya la keenay waxay xaq u leeyihin wax laga xadaan mise aan la xisaabtamo waxaa jiray meeshaan kismaayo xuduudka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya xuduudeeda badeedkeeda waa waxaa kaman bay ahayd 200 mayl oo saac ah waxaa la damcay in lasoo wareejiyo ninka arrintaan continental shelf qoray wuxuu ahaa nin kenyana oo thomas jakuku la dhaho oo markii dambe ay kenya un-ka ay boos uga heshay xuduudinta eelaja meesha ku jira oo laga helay waxaa ugu weyn eel la yidhaahdo l13 wuxuu dhankeenu soo jiraa marka waxa la isku haysto oo dhanna waa eelkaas iyo saliidaas eelkan afka ku dhuftay waxaa ku jira batrool quwadiisa la eg inta ay kuwait haysato kale alona meesha hadda mushkilada jirta oo loo baahan yahay in la arko marka contract systemka marka soomaaliya waxaa interest gareynaya arrimahaasi norway iyo dowlado badan markay arkeen soomaalidii diilkii waxay isku dayeen mar economic free zone in laga dhigo markii dambe waxay raadinayaan contract inay la galaan dowladda soomaaliya ama markay arkeen soomaaliya inay dad ayaga isku jeeda ay yihiin oo waxaan oo dhan aan arkaynin oo dadkoodana baahan yihiin ba waxay yidhaahdeen sida xadda ay jirto in ay meeshaas lagu wareejiyo kenya dacwadaasna way socotaa dacwadaasi haddaan ku qasaarnana lugooyo badan bay noo tahay marka meeshaas waa resource oo aad u weyn waay marka dowladaha adduunka oo maaragtay futada ka riixaya dowlada maaha waa kompaniyo inaad fahantaan loo baahan yahay kompaniyo waaweyn oo dowladahaas laga leeyahay baa siyaasad iyo waddankaas influence ku leh oo rabta inay dowladeedii ka faa'iido waa run inay soomaaliya dad badan actors baa la yidhaahdaa dadka hadda ugu waaweyn dhexdoodana waa kala fikrad duwan yihiin habka ay u wadaan inay maaragtay oilka iyo contractiga sidii loo qaadan lahaa laakiin waxaas waa long plan laakiin waxaa la rabaa investment benefits wuxuu ku fiican yahay in maaragtay maxaan ku idhaahdaa oo kale stability yimaado shuruucdii waddanka la dejiyo oo wixii oo dhan walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey marka dowladahan federaalka oo kale aan ka fikirtay tababarka ciidamada waxa weeye iyadana waa mandate waaye markii dowladda soomaaliya waxay tiri waxaanu adduunka ka codsanaynaa in tababara ciidamadeena marka dowlad kasta oo waqti kula soo gelaysaa siyaasad kastay wadato waxay odhanaysaa ciidankii soomaaliya tababaraya siyaasad kale ha u ahaado laakiin waxaasoo dhan waxay ku biyo shubanaan oo mushkilad halo waa tahay sheekh nuur waa tahay suuban cabdulaahi maxamuud faytaan ayaa nagu soo biirtay sidaa arkaysaan dhegeystayaasheena qiimaha qaayar halkaad naga dhegeysanaysaan waa raadiga waana soomaaliya kaasi wuxuu ahaa sheekh nuur oo runtii qadka telefonka inagu soo tiigsaday dalka maraykanka bal aan runtii soo dhaweeyo suubanay waxaad arkaysay sidai wax u dhacaayeen hadaladii iyo waxyaabihii aan isdhaafsanaynay bal maxaad runtii qaybihii ka horreeyna waxay doorashooyinka bal maxaa fikrad caawa lagu darsanaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adiga sidoo wiilka sheegan qabaa bikaaw soomaalida haddii ayada isku tashanin oo loo talina waa run khayraadka iyo waxaan ka hadlayo dhanne gacanteena ka baxayn haddaan anaga tashanin waxa dhibaatana haystoo dhan waxaa loo soo maraa soomaali geed wuxuu dhahay mishaar ima goyleen hadduu cadkeeda ku oolin haddaysan jirin dad soomaali ah oo corruptionka raalli ka ah haddaysan jiri lahayn dhibkaa dhan ma dhici lahayn markaan waxaan qabaa soomaalida gobollada u kala gogooday oo madaxda gobollada sheeganaysa oo mid mid u cararaayo ha tashtaano soomaaliya ayaga dartooda u baaba-oysaa taasaan beenahan dartood ayay u baaba-aysaa haa qadka telefonka ayaa ku jira ha dhegeysta habe wanaagsan habe wanaagsan dhegeysta habeen wanaagsan maxamed waa ku sulaana maxamed habeen wanaagsan waana maqashaa barnaamijyadeena waa la socotaa umalena waana dhegeysanaysa caawa marka bal adiga arrimihii waddankan aan ka hadlaynay mase arrimaha xalana iyo waxaasaa bal fikrad ka dursanaysaa caawa
kufraya soomaha waa dhibaatadana haysato waxaa waaye aniga isku maqan dantii guudna waa dayacnay waxaan maanta sheegi karna waxaa waaye calool baahanay xooladaada dada waa mogt aad iyo aad marka sidee lagu dadanaa marka ya sideen ku dadanaynaa hebel waaya marka maxaa fikrad iyo talo noo haysaan wallahi wade sida oo professorka sheegay waxaa waaye inaan sharafteena doonano aan karaamadeena soo ceshano dad wadaniyiin inaan iska dhigano aan iska dayno mucaarada badan oo aan wax walba ka dhigano maahay inaa mar walba waxaa waaye biniaadanka waxa u dhexeeya rajo iyo qof marka mar walba dhinaca wanaagsan inaan wax ka eegnaa fiican dhinaca walba soomaalida meel walba joogaan way dadaalayaan laakiin waxaa aad ugu badan aqoon la-aanta dhinac walba ah waktigii burburka kaga baagaysa badankeeda waxaanu ku dhammaynay shaksi isku eegno taasna waxay keenaysaa dhibaatada maanta meesha aan joogno dadkii na hogaamin lahayn ummad hadday hogaanka halaawadaan waxaan u malaynaa dhowr jeer arrimaha waa laga wada hadlay waxay u baahan tahay action meel u baahan meel shaqo u baahan hadal wax ka fakaro marka soomaalida tala wanaagsan waa la siiyey marka waxaa wanaagsan inaan dhinaca wanaagsan ka eegno aan yarayno macnaha mucaarada badan oo aan naqano dad midaysan oo danahooda wada qabsado ujeedada guudna waxaa waa carruurtana say ku badbaadsanaa taasaan been ahayn qof walba oo soomaaliya oo damiirla taas ayuu runtii ka shaqaynayaa waana waxaan kugu raacsannahay maxamedow bal maxaad kaloo caawa kusoo gabagabaynaysaa mase waa intaasaa caawa aan isku sii dhaafnaa laba arrin bay meesha uga taalaa labada arrintaana waxaa waaye dadka gudaha wadankii inaa wanaag u rashayno oo anigana mas-uuliyad adag ahaayana in tahay garabkooda galo oo aana ka dhigin dad aan waxba qaban ula dadaalayaan laakiin inta tabartooda ah qof walba dadaalka dhinaciisa ka wadaa laakiin waxaa laysku dhaafay aqoontii iyo fahamkii marka cadowgaagana mar walba markaa daciifta ayuu kaa faa'iidaysanaya waan aragna maanta meeshii ugu nabada badnayd puntland inay maanta dagaalo iyo dilad ay ka socdaan waxaana u sabab ah hogaankii markuu ka halaabo directionka uu naqdo danayta ay naqato waxaa arkaysaa maalin walba waxaa la dilaa maqlaysaa waa meeshay soomaali ku badbaatay puntland maantana waa arkaysaa dhibaatada ka taagan marka waxaa waa inaa eeda iska dhaafno inaan waxa wada qabsano nin walba shaqada loo dhiibta inuu qabto aan ka baxno waxaan corruptionka iyo lacag doonka ah waxaa yaraatay wadaniyadda yaraatay nin walba wanaadinaa lacag taas waa dhibaatada soomaali haysato wax kale maahan waa inaan hogaankeena ka dambayno oona ixtiraamna okay maasha allah waa mahadsantaan ku leenahay maxamed waxaan kusii siqaynaa gabagabadii bal inta aanan waxa waaye hawada isku macsalaameyn waxaan idin leenahay ama idin xusuusinaynaa in waxa waaye xaj an cumra tour guide for holy cities waa runtii group runtii lagu magacaabay xaj an cumra ay runtii dadka u kaxaynayaan xadka ay u kaxaynayaan laakiinse haddeertaan waxay leeyihiin march break waa ay buuxsantay laakiinse waxaa laidin ballan qaadayaa in aad runtii aad kala qaybgeli kartaan inaad xajka la aadaan agosto 11 ayay leeyihiin qaybta ugu horreysay xajka ayay bixaysaa waxayna soo laabanayaan first September waa VIP class ayaa jira ayay ku leeyihiin AC basas ayaan idinku qaadaynaa waxaan idin haynaa AC oo teendooyin qaboojiyaal leh marka bal intaas waa dad very important ah ayay ku leeyihiin bal marka waxaan leenahay bal xaj an cumra waxaa adresskooda uu ku yaalaa agaarka Western iyo Lawrence marka waxaa idin leeyahay kasoo qaybgala adresskooda waa 2107 Western Road waa xaafadda York ama Western and Lawrence area xaj an cumra marka bal kasoo qaybgala wanaagsan march break waa ay buuxsantay laakiinse xajka ayaan idin haynaa waana limited seats ayay leeyihiin ilaa iyo 50 marka bal kasoo qaybgala gabagabadii bal waxaan weydiinayaa bal saaxiibkay Dr. Qaasin inta aanan soo xirin oo aanan u soo gudbin suuban maxamuud cabdullaahi faytaan bal u soo gudbiyay qaybihii ugu dambeeyay bal doctorka bismillahi raxmaan raxiim waxaan dhihi lahaa sida ugu dambeysay haddaan ka wada hadlaynay dadkeenna soomaaliyeedow walaalayaalow meel walba aad joogtaan aan garowsanno noloshu inta ay tahay iyoanaan hungurigeenna ka dhigin mid ah jaantaar rogan oo aanaan noqon dad intaa qof walbaba uu rabo inuu wax alla wax adduunka yaalla hamsiisto oo keligiis laqo arrintaas aan qof walba meesha uu joogo ha isku waansado oo ha arko hadduu marba nool yahay maalinkaas sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid ka sugnaaday oo ah man baata aaminan fii sirbihi wajada quuta yowmihi fakaannamaa xaasat iddunya bixadaafiirihaa qofkii habeen barya isaga oo aamin ah oo aan macnaha dhibaata haysano cadow kusoo duulaynin oo quutul yoomkiisana maalintaa hela
waxay la mid tahay isagoo adduunyada oo dhan oo macalxaabkeedii iyo gaarbijkeedii iyo qashinkeedii wadata helay sidaas ha noqono maalinta waxaad cunto haddaad hesho iyo berri qadadaadii haddaad helayso ogow in aad taajir tahay aan iska dayno fikirkan ah adduunka oo dhan anigu aan ugu taajirsanaado soomaaliya oo dhan iyo qabiilkayga anigu aan ugu taajirsanaado hana la hoos yimaado haddana ha la iska ilaaliyo hunguriga ah anigu aan keligay madax noqdo oo inta kale hay soo hoos timaado ogow waxaa adduunka ka socda in ay tahay aad sharaf ku yeelan kartaa inaad in yar inta noolaatid si sharaf aad ku noolaatid marka qodobkaasna intaasaan gowaabadayda uga tahay midda kaleeta oo waddanka waxqabadsadishadiisana kulligeen waxaan isla barbar dhigaynaa in aan lax walba shilalka isdhigtay baa lagu qalaa inaan taagannahay laakiin 30 sana hadalkaas haynaa inaan ficil ka dhigno si aan ficil uga dhigno qof walba isagu naftiisa ha ka bilaabo oo ha ka fikaro danta guud mata uusanba dantiisa ka fakarinin sidaas xaqadu isugu imaanaysaa maasha allah wax la qiyaasi kara maaha waxaan idin leenahay halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio one soomaaliya fikrada aad u fara badan oo dalkan iyo dibaddaba intaba waxaa caawa inoo haya bal inoona soo gabagabaynaysa hadduu ilaha ka raali noqdo suuban maxamed cabdullahi fiitaan bal kusoo dhawoow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا رمتي وحن ديلا هرتو الصومالي ذاتك جرو ليبي دا في حقا وابا رقنيبا محاد دبدو بهاقا لاناي بل هذا تورنتو أنا سمينا لانش أو سمينا تون هول ميتين وأنا from now يسبدل لنا بوزيتيفك وحنا من سنة الصومالي دبدو جوكتو هداها هاقاقنو أوتوماتيكالي كو قدها دولدها بنانكو وهذا فران وقلو جرو wayba ka baqayaan buuxinay Soomaalida isdiili jirtay ama isbaabiinaysa ama dhibaatooyinka ku jirtay Minneapolis, Toronto, London, UK iyo meel kasta aan joognay way hagaageen dadka hadii hagaagaan isbedel dhacay dawladoodii u socdaane bal aan ka qafiifino laakiin anagii ama balaan aan joogno ama gudaha aan joogno dhibka anaga isku haynaa wuxuu ka wan yahaybo dhibka adduunyada oo geysanaysa aad u yiriyan qaba ka anaga isku haynaa number 1 2 3 4 kilo ayaga qayb yar aynu sameeyno marka waxaan kusoo gabagabayn lahay Soomaaliyay adiga isku tashan cid ku maqan malaha taasaan been ahayn waxaan leenahay runtii halkaad naga dhegaysanaysaan ama naga daawanaysaan waa radio one Soomaaliya Facebook live waxaan runtii aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa oo isugu kan soo dubariday Xuseen Nuur Xaaji iyo Yaasiin Abikar waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa Suuban Maxamed Cabdullaahi Fiitaan Dr. Qaasin Xirsi Faarax iyo Ayaan Yuusuf Cumar iyo anigoo idin leh habeen wanaagsan anigoo Muuse Kuulo waxaan idin leenahay wiiga soo socda ayaa inoo balana habeen wanaagsan